أب ما شاء الله ويلكي قاعد بان كوغو فرحسناي maadaama aad badbaaday hooy haddii aad igu kalaanayso waxaan rabaa gacantaada inaan sameeyo soo dhow gabadheeda ilaah baa mahad iskale walaal walaalkay cismaan eed waa ku salaamay igaarkee igaarkayga saata igaarkayga haydhin aniga dumaashiga waa mahadsanta walaalahay caafimaadkooda iga waran waa raayaan waxaanba rabaa ayaa aad inaan ka hadalno arrimahooda waxaan noo dhibanna wax kale maahan maadaama aan guulaysanay waa inaan xaflad aad u weyn dhigannaa xafladdaasna aan isugu yarnaa dhammaanba dadka deegaanka deggan oo ay ka soo qayb galaan oo weliba ay noqoto mid aad u ballaaran sax waaye waan farxaynaa weliba raashiin ayaan cunaynaa raashiin nooc kala duwan dad fara badan meeshan way isugu imaanayaan waxaa la cunay waslada hilib aad u fara badan raashiin noocyadiis kala duwan iyo weliba rooti ayaan cunaynaa raashiinka kadib waxaan rabnaa inaan ka sheekaysanno siiradeenna nebigeenna sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisa waxay isla soo mareen in sha allahu tacaala warka waa uu ii dhiman yahay ha iga dhexgalina warka waa uu ii dhiman yahay ha iga dhexgalina guushaan aan gaarnay waxaan ku gaarnay ilaahay dartiis haddaynu ilaahay aaminsanaan lahayn guushaan anaga ma gaari lahayn maasha allah bamsi aad baad u mahadsantahay bamsi soo uma eka farxad inay kaa dambadisay runtaada way walaal farxadda maanta way iga tanbadatay waxaan ku hadlaya xitaa ma aqaan baryahan warkii aan beegayay beerkaygana aan ku hayay ayaan rabaa maanta bannaanka inaan idiin soo dhig idinkana aad tiraadaan walaal bamsi beryihii wacna ayaa dib noo soo xusuusisay warqaddan waad qaadaysaa suldaanka adiga kaa sarreeyaad u geynaysaa waxaad leedahay artur ayaa kuu soo dhiibay gacanta ka saar mar dhowna waxaan rabnaa inaan duulaan culus qaadno amiir bahadiin sidaas oo la soco suldaankeenna maxaad uga baahan tahay suldaanka waxba ogama baahni laakiin daraagos waa inaan magaalada zuguud ka badbaadiyaa waan ogahay dilka takfuriyaniis loo geysta waxaa ka dambeeya komaandar lays ninka lagu magacaabo halkaas markuu gacanta ku dhigana ugu dambayn waxa uu rabaa magaalada zuguud inuu yimaado oo innagana maamulo intuusan noo imaan ka horna barta uu joogo waa inaan ugu tagaa xukunka uu leeyahayna aan marsiiyaa suldaankana waxaad iga gaadhsiinaysaa inaan isku filannahay ciidanna aan haysanno hawshanna innaga aan fulin karno maamulka lefkaana ka warrama maamulka lefka haddii aysan lahayn awood ayaga ay isku difaacaan annagu diyaar waxaan u nahay cid allaaliya ciddii weerar nagu soo qaadda inaan iska difaacno cadowgeennana aan meel iska saarno insha allahu tacaala hadalkayga intaas ayaan ku soo koobayaa amiir bahdiin safarku ha ku wanaagsanaado